السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامجك كان الساقة وان نينسو تبين ايو شانالك أروركا كاسو كسابسن أرنكا محابيستا ايكالا هايستان مامولكا SNM ايو مامولكا خاتمو iyadoo la ogsoon yahay daawada in dagaalkii 25 August jimcihii bishiina dhaaftay maamulka Khaatumo iyo xoogaga hubeysan ee maamulka Khaatumo ciidanka maamulka Khaatumo ay gacanta ku dhigeen jabkii gaaray maleeshiyaadka SNM kadib tiro badan oo maxaabiis oo gaaraya boqolaal isla mar ahaantaana ee ku nafbaxeen dagaalkaas isaga ah ee jiidii dheereed ee iyada ah ee la ogsoonaa ka dhacay sidoo kale tiro badan oo aan ka yarayn boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka SNM ka sokow farxadka goobihii dagaalka ka cararay iyo farxadkaasoo qaarkood ee deegaamada qaarkood ama dhaawac ugu dhinteen daraadiis ama gaajo markii ay deegaamada qaarkood ku noqdeen kuna dambeeyeen inay noqdaan maleeshiyaad ambada hadda iyo dan maamulka SNM ee Hargeysa oo isku dayaya inuu maxaabiista ku sugan magaalada Laascaanood oo maamulka Khaatumo uu ka arrimiyo inay soo ceshadaan oo gacanta ku dhigaan aragtida koowaad iyo arrinka koowaad ee meesha yaal daawade oo ah in ay weli taagan tahay socotona xaaladii dagaal iyo colaadeed ee ka dhaxaysay maamulka Khaatumo iyo maamulka SNM ee Hargeysa saas awgeedna xilliga kan isaga ah ee colaadeed ee dagaaladu taagan yihiin qaarkoodna laga soo gudbay 8 bilood oo tagay in xaaladaas iyada ah ee colaadeed ee dagaal ay weli taagan tahay mar haddii xaaladaasuna taagan tahay wadcigaas isaga ah aanay suurtagal ahayn in la kala weydaarsado wax maxaabiista oo aad wareejisaa haddaad tahay maamulka Khaatumo maanta waa kuwaasoo qayb ka mid noqda dagaalada rogaal celiska ee soo socda una arrinku ku habboon yahay in maxaabiistaas iyo arrinkaas isaga ah la soo afjaro oo lagu simo xaalad ay ka dhacdo labada dhinac dhexdood waaqac ama arrin nabadgelyo oo lagu gaaro heshiis kama dambayna iyadoo la ogsoon yahay in maxaabiista laga hayo maamulka Khaatumo iyo bulshada Khaatumo ay aad u tiro yar yihiin isla markaasna ay lagu tilmaami karin inay yihiin maxaabiis dagaal balse ay yihiin dadyow u afduuban dadyow shibil oo shiciba u afduuban maamulkaas isaga oo siyaabo aad u liita oo hooseysa lagu qabtay arrinka kale oo meesha yaal daawade oo ah in dadyowga u kala dabqaadaya maamulka Khaatumo iyo maamulka maleeshiyaadka SNM inaanay ahayn
xoogag siyaasadeed ama dadyow ka baxsan bulshada Soomaaliyeed oo ay ku egyihiin dadyow dhaqan sida ninka lagu magacaabo Boqor Buurmadow oo run ahaantiina wax salaaxiyaada ama ogolaansha ama kalsooniya aan ka qabin maamulku ka soo jeedo oo ah maamulka SNM. saas awgeedna aan lagu halayn karin xilkaas isaga ah aanuna ahayn xilkaas isaga ah ama arrinkaas isaga ah mid ku habboon inuu qayb ka qaato ama mas'uuliyadiisa loo xil saaro taasoo igu wacan tahay inaanu xilkaas iyo mas'uuliyadaas iyada ah aanu qaadi karin ayna u baahan tahay arrintu damaanaad siyaasadeed iyo cid si qoto dheer leh ugu dabqaadi karta labada maamul ee ishaya gunaanadkiina ay ku habboon tahay in dabqaad iyo dhexdhexaadin ka soo jeeda dhaqan ee meesha ka caaganaato mar hadduu arrinku yahay loolan siyaasadeed iyo loolan hubaysan oo loo daayo cidda ku habboon aanna lagu degdegin arrinkaas isaga ah run ahaantiina saan tilmaamay arrinkaas isaga ah loo daayo xilliga gunaanadka dagaalka isla markaasna uu arrinkaasu noqdo maxaabiista kaadh iyo arrin gala loolan iyo shardi lagu xidho maamulka maleeshiyaadka SNM inay ka waantoobaan xaaladda colaadeed iyo weerar ay ku soo hayaan deegaamada maamulka Khaatumo shardigaasu noqdo dhiibista maxaabiistu hadday dhacdo inaanu dagaal dambe oo maamulka Hargeysa ka soo jeeda aanu dhicin saas awgeedna gunaanadkiisaan tilmaamay daawado uu noqonayo in arrinkaas isweydaarsiga maxaabiista loo daayo xilli kama dambaysa oo ku aadan soo afjaridda colaadda ka dhex oogan labada maamulka Khaatumo iyo maamulka SNM ee Hargeysa taladaasuna tahay laguna tilmaami karo daawado aragtida ugu habboon oo cilmiyeysan ee la taaban karo ee wax ku oolka ah kana soo butaaci karta mushaaxi karta caqli caafimaad qaba la saanqaadaya duruufaha siyaasadeed iyo nabadgelyo ee taagan waanigoo ah daawade Khaalid Xasan Yuusuf intaan ku kulmi doono barnaamij kale iga guddooma assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu